garoonka cusub ee magaalada Garowe oo maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu daafuray waxaa loogu magac daray Allah u naxariistay Generaal Maxamed Abshir Muuse oo ahaa taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliska Soomaaliya. munaasabadda furitaanka garoonka waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, ku-xigeenkiisa iyo labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Puntland. madaxweyne Puntland waxay ku tashatay waxay yiraahdo isku tashi bay ku balantay. waxaan ku balantay isku tashigaas waxaan ku bilownay oo odayaashii ugu horeeyay Maxamuud Xaaji Sokar oo noo fadhiyo sheekheeni wadadii midigar wada xashtan oo mareynaya oo bilowgii 2014 iyadoo go'aanmeen u nimid aanan u qabin in aanu buundo dhisan ka roway dadku ay u qabeen laakiin dakhli $1 milyan ah iyo 2 bilood gudahood aan ku dhamaystiranay waxayna tusay taasi wax badan in aanan ka sugin ajnabi iyo dabad laakiin annagu wixii aan qabsan karno aan qabsano. madaxweyne Farmaajo oo hareer taagan yihiin madaxda ugu sareysa Puntland ayaa si rasmi ah xariga uga jaray garoonka cusub ee Generaal Maxamed Abshir. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in garoonkani dhismihiisa wax badan laga soo maray loona baahan yahay hadda inta dhiman inay dhamaystirto dowladda federaalka Soomaaliya. shacabka waxaa laga rabaa marka inay siiyaan taageero joogto ah. taageerada joogtada ah waxaa ka mid ah sida madaxweynaha uu sheegay in garoonkan maanta ka furan halkan ay ka wada qayb galeen guud ahaan shacabka reer Puntland, ganacsatadooda iyo culamadooda iyo salaadiintooda iyo cid walbaba ay wax ka geysteen. waxa weeye waa taageerada looga baahan yahay shacabka inay qayb ka noqdaan horumarka dalkooda. haddii shacabkaasu ay taageeraan dowladdaasi xaqiiq waxaa ah in maamulkaasi uu horumaro. waxaa laga rabaa shacabka inay difaacdaan oo ilaashadaan waxay haystaan oo isbeddelkan uu ku yimaado waxay ku ballameen ay isku waafaqsan yihiin oo sharciyeysan. idinkana waa ku ammaanan tihiin runtii reer Puntland laga soo bilaabo 98 ilaa hadda sida wanaagsan oo aad u taageertaan mar walba dowladda timaadda gacan u siisaan aanad u ilaashataan wax ugu horeeya oo laga rabo shacab inay ilaashadaan oo ah nabadda. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shacabka kula dardaarmay in si wadajir ah looga shaqeeyo dowladnimada Soomaaliya si loo gaaro horumar dalka Soomaaliya. Cabdiraxiin Cabdullaahi may wahaystaa kaaska dhaf. furitaanka dhismahan loogu magac daray taliyihii hore ee booliska Soomaaliya Maxamed Abshir ayaa wuxuu nasiib u yeeshay inuu xarig ka jaro madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Hon Cable TV, magaalada Garowe.